waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka si rasmi ah uga furmay shirweynaha sanadlaha ee qiimeynta waxqabadka hay'adaha garsoorka deegaanka ee sanad miisaaniyadeedka 2018 tirsi taariikheedka dalka. Shirweynahan oo furay kusimaha gudoomiyaha maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cabdikariin Axmed Aadan ayaa waxaa ka soo qayb galay hogaaminta maxkamadda guud ee deegaanka, dhammaan gudoomiyaasha maxkamadaha sare ee gobolada deegaanka iyo marti sharaf kale. Shirweynahan ayaana socon doona muddo 4 maalmood. kulanka ayaa intuu socda lagu qiimeyn doonaa qorshayaasha iyo jihooyinka istiraatiijiyadeed ee hay'adda garsoorka iyadoo laga duulayo warbixinada waxqabadka hay'adda ee sanadkan, waxaana maamulada maxkamadaha sare ee deegaanka halkaasi lagu siin doonaa talooyin iyo tilmaamo gashi u noqon doona dardargelinta shaqooyinka bulshada loo hayo. maanta way taariikhdu tahay 14 bishii tobnaad 2018 waxaan halkan ku furaynaa shirweynihii qiimeynta warbixinta maxkamadaha deegaanka ee sanad miisaaniyadeedka 2018 shirkaas oo ka soo qayb galeen dhammaan gudoomiyaasha maxkamadaha heerarka kala duwan, gudoomiyaasha maxkamadaha sare ee gobolada, gudoomiyaasha maxkamadaha degmooyinka iyo maamulada magaalooyinka, madax fadhiyada maxkamadda guud ee deegaanka iyo xubno ka mid ah xubnaha guddiga maamulka garsoorka. marka waxaynu ku eegi doonaa runtii waxqabadka oo ku qiimeyn doonaa waxqabadkii sanadkii la tagay maxkamadaheenu heerka uu gaarsiisan yahay waxqabadkoodu iyo wixii tala iyo tilmaana in markaa kadib isa siin doona haddii la yidhaahdo sida ajenduhu inoo yahay baan ugu kala horeyn doonaa. gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda guud ee deegaanka Mudane Cabdikariin Axmed Maxamuud oo faahfaahin ka bixiyay shirkan ayaa tilmaamay inay muhiim u tahay qiimeyntani waxqabadka maxkamadaha, xaqiijinta guulaha waxqabad ee la gaadhay iyo xal u helidda caqabadaha jira, isagoo intaasi ku daray in laga filayo kulankan talooyin iyo qorshayaal lagu horumarinayo nidaamka garsoorka. maanta oo ay bisha ahayd 14 bisha tobnaad 2018 waxaa caasimaddeena dowladda deegaanka Soomaalida kulliyadda maareynta adeeg shacabka nooga bilaabay qiimeynta waxqabadka maxkamadaha ee sanadka 2018 waa sanadkan gabagabada ah. dabcan kulamadani waa kulamadii aan soo joogteyn jirnay oo sanad kasta gabagabadiisa aan ku qiimeyn jirnay waxqabadka iyaga noo soo qabsoomay ee hay'adda garsoorka gaar ahaan. marka kulankan ujeedadiisa ugu muhiimsan waxa weeyaan sanadkan aanu soo shaqeynay adeegyadii aan soo bixinay tira ahaan iyo tayo ahaan labadaba maxaa wanaagsanaa oo dhankee wanaagsan ay lahayn, maxaa jilicsanaa ama maxaa daciif ahaa oo loo baahnaa, dhibaatooyinka ama dhanka daciifka ama dhankeena jilicsan xaggay ka yimaadeen, maxaa ilaaw ahaa dhibaatooyinka ama dhankeena jilicsan sanadka 2019 si aanay u soo noqonin ayaan kala kaashanaa. kaalinta anagu aan ku leenahay maxay ayaa kaalin kule shacabka kaalin kule maalaamaha dowladda kala kaalin kule arinta ah ayaan ka wada arinsanayni laga bilaabo maanta ilaa 3 ilaa 4 cisho soo socdana kulankaas inuu sii socon doono ayaan ku rajaynahay. si guudna adeega aan sanadkan soo siinay macaamiishayda maxkamadaha deegaanka hadaan nahay 3 darajo kala sareysa: maxkamadaha darajada koowaad oo degmooyinka iyo magaalooyinka, maxkamadaha darajada sare oo gobolada iyo maxkamadda guud. adeegyadii aan soo bixinayno oo dhan dhankeena wanaagsan inaan fiirino, dhankeena aan wanaagsan inaan fiirino, dhankeena aan wanaagsan 2019 sanadada ku xiga inaan soo laabanin, inaan iyadana ka sii arnisano oo qorshaha ay noogu jiraan. arinta ugu muhiimsan weey marka dhankeena aan wanaagsan fiirinayno waxaan ku saleynaa dhowr qodob aan ku saleynaa. go'aamada iyo adeegyada aan siinayno intay ku saleysan yihiin cadeymaha iyo dokumentiyada iyo maragyada ay dadku wataan. 2 adeegyada iyo go'aamada aan dadka siinayno waqtiga ay qaataan iyaduna waa waxyaabaha waqti lagu xisaabtamo oo go'aamada haddii ay noo yimaadaan hadba faylka ama dacwadaha noo yimaada iyagoo ay kala duwan yihiin haddii waqti ku filan ay helaan iyaduna waa waxyaabaha laga cabir qaato in adeega uu roon yahay. qodobka saddexaad ee aan ku cabir qaadana waxa weeyaan go'aanka degmada ka soo baxa gobolku haddii aan saxiyo ku raaciyo oo haddii aan saxiyo oo ku raaco waa hal qodob oo laga duulo in degmadu ay cadeyn fiican keentay. gobolka go'aanka ka yimaada heer deegaan haddii aan saxiyo iyadana waa hal tilmaana oo laga duulo. go'aamada federaalka ka baxay maxkamadda guud ee federaalka la tagayo federaalku haddii ay soo ansixiyaan iyaguna ama ay nagu soo raacaan iyaguna waa hal qodob oo laga duulo oo la yiraahdo maadaama go'aamadu la inagu raacay ay badan yihiin adeegina sanadkan waxba iska bedelay. marka intaasoo tiiriyo kuwa kale anagoo ka duulina waxaan qiimeyn ku sameynay sanadkan 2018 aan soo shaqeynay adeegaygu sidii ahaa.